السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan baranaynaa waxa loo yaqaano multiple waxaa waaye haddii hadda mithaal aan qoran aan dhahno labo oo lagu dhuftay saddex wuxuu la mid yahay lix six. So marka labo saddex lagu dhuftay wuxuu la mid yahay lix. Multiple marka definitionkiisa muxuu yahay? Waa product natiijada kasoo baxda of multiplying a number by an integer. Marka waxaa laga wadaa multiple waxaa waaye natiijada kasoo baxda laba number an integer marka lagu dhufto number kale. For example hadda labo haddaa fiirisid labo markii wax lagu dhufto natiijada kasoo baxda waxaa waaye lix. Sidoo kale labo lagu dhuftay afar wuxuuna siinayaa sideed. Sideed waxaa loo yaqaanaa multiple. Definitionka multipleka wuxuu yahay sideed wuxuu yahay multipleka labo ama multipleka afar. Sidii markii hore aan soo baran aan dhihi jirnay oo kale labo iyo afar waxay isir u yihiin sideed ama waxay marka labadaas divisor remainder la-aan ay sideed qaybin karaan ama isirka sideed waxaa waaye labo oo lagu dhuftay afar. Hadda waa sheekadii oo lasoo rogay oo kale waxaa leeyahay sideed waxay multiple u tahay afar ama labo. Haddaan dhahna hadda say 5 maxaa multiple u ah? Number walbo multiple uu isku yahay sababtoo ah shan haddii hal aa ku dhufatid maxaa waaye waa shan. Haye maxaa kaloo multiple u ah? Any number aa ku dhufatid waxaa ku dhufan kartaa labo oo na siinayo 10. Waxaa ku dhufan kartaa saddex oo na siinayo 15. afar aa ku dhufan kartaa oo na siinayo 20. So marka waa arkaysaa macnaha multipleka waa the product or the result oo kasoo baxda number markii lagu dhufto an integer. So marka integer waxaa laga wadaa macnaa minus uu noqon karaa. Hadda shan lagu dhuftay hal waa shan. Shan lagu dhuftay minus one maxaa waayo? Maxaa minus 5. Minus 5 is a multiple of 5 sababtoo ah shan oo lagu dhuftay minus 1 still wuxuu la mid yahay minus 5. Macnaa wax shan lagu dhuftay waaye. Laakiin fraction ma noqon karo. Waa inuu whole number ahaada wax lagu dhufanayo. So marka minus 5 is a multiple of 5. Marka sharcigan xasuusno multipleka waa natiijada ma aha istirada la isku dhufanayo. Waa natiijada kasoo baxda waxa lagu dhuftay integerka lagu dhuftay numberkaas. So marka aan isku dayna hadda inaan ka shaqeyno su'aalahan. Waxaa lagu yiri find multiples of 10. Multiples of 10 maxaa waaye? 10 oo naftiisa asaga ka bilaabanayo haddii hal lagu dhufto, haddii laba lagu dhufto 20, haddii saddex lagu dhufto 30, haddii lagu dhufto afar 40 and so on. Forever waa soconaa macnaha. Ku dhufo haddaa rabtid 10 hal milyan ku dhufo still hal milyan is a multiple of 10 noqonaa. Haye multiples of 0. 0 maxaa waaye hadda? Ku dhufo hadda 0 haddaa ku dhufatid hal maxaa waaye? Waa 0. 0 haddii aa ku dhufatid labo muxuu ku noqonaa? Waa 0. So saa u jeedid marka 0 multiple ayadaa isku ah. Intaa rabtid ku dhufo 0 aa multiple u ah. Ma arkaysaan? 0 hadda hal milyan ku dhufatid xitaa it's multiple of itself. Su-aasha afaraad waxaa la dhahay circle multiples of 8. Macnaha nambaradan fiiriyaa lagu dhahay numberkii oo multiple oo sideed u ah xariiqa geli. 20 multiple oo sideed ma tahay? No, sababtoo ah number and fraction ahaan oo marka lagu dhufto sideed oo na siinayo 20 malaha. So it's not. Haye minus 32. Number marka lagu dhufto sideed oo na siinayo 32 ma yahay? Yes, sababtoo ah sideed oo lagu dhuftay minus 4 wuxuu la mid yahay minus 32. So yes, marka minus 32 waa multiple of 8. Haye 40 aan fiirino sideed multiple of 8 ma tahay? Sharciga wuxuu ahaa sideed markii number lagu dhufto natiijada kasoo baxda wax afartan na siinaya ma jiraa? Yes, sababtoo ah sideed oo lagu dhuftay shan wuxuu la mid yahay afartan. So afartan is a multiple of 8. Haye 57 multiple muu yahay? No, sababtoo ah ma jiro number marka lagu dhufto sideed oo 57 na siinayo. 64 aan fiirino multiple of 8 ma yahay? Yes, sababtoo ah
sideed oo lagu dhuftay sideed wuxuu la mid yahay 64 so 64 is a multiple of 8 haye minus 16 aan fiirino minus 16 multiple of 8 ma yahay haye wax marka sideed lagu dhufto oo minus 16 na siinaya ma jiro yes waa sideed oo lagu dhuftay minus 2 oo la mid ah minus 16 haye sideed aan fiirino wax sideed marka wax sideed lagu dhufto oo sideed na siinaya ma jira yes waa sideed oo lagu dhuftay hal oo la mid ah sideed so 8 is a multiple of 8 and minus 16 is a multiple of 16 so waa concept easy ah um, waa natiijada xarafkaas oo definitionka haddaa si fiican u xasuustid waa natiijada kasoo baxda it's the product macnaa natiijada kasoo baxda ama resultiga kasoo baxa number marka aad ku dhufatid integer kaasoo laga wado number oo positive ah ama negative ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu